الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعليق إن شاء الله خطبة أيام وحير جلينا لبعض الرماد أي كسب سنة خطبة وروح كسب سنة دين الإسلام كو سلا إنه جبوا ريسي عرب كأما حضرك إلا قرحيه أو ورنا يكسم لجوه الله محايا لي شيطان كم يلا وكفى إذيستو وضدك إسكجدره وهذا الله حن اللي يصير هذا ساس إله دومي سوحكيري وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا يعني أضوما يقول كتر هذا رسولك الله هي هذين هذا الكيس وناكسن مرك هذا وناكسن إذا وهو وناكسن دين تيرين ودين أخلاقات وحامرك وحلا يابلعه ومدينا الصومالي قارهان يعني حلية أو مرحلة كالجور كالجو كلا ذلك قار كيس هذا الله يكون اللهيان يعني إن اسكو حسابين دونه قفك وحو كو الله يؤمن مليسي القرآن كان حنكو آخرنا سورة القاف وحاكو جرت آيات الآيسة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قفك واحد استوى كو الله ولا قد يوانجلنا يا هذه هذا وناكسن ويلاله صدقاء للقرايا والكلمة الطيبة صدقة النبي صلى الله عليه وسلم حديث وحكيري قفك وحادعي كرتا هذا وناكسن إنه يلاله أصوى حسابته إنه وجري هذا كان وناكسن إنه مال في عن جالسين دونه وإلهي درجوين وكر يلاهي وحادث كرت قف إنه كه الله هذا الحن وإلهي وكعرنا يو وأصوّر وصل الإسلام قفا كه الله يا وحبوا دي بكينا يا وصلوا ملايين والنار توكوه من أي كلمة سوكوه الله درادت أيها عيسى مركز تاس إنسلاس لو قادو عرب كاس الإسكيل هذيو حديث كي معاذ بن جبل نبي حكومة صلى الله عليه وسلم أرمي الدين تو بضاعنا إن كان سو شيكي وحاسكف فوق سنة يا لهذا وحا يعني مضح وضعه انتو عرب كي سقبت يا وحكيري كان اسكيلالي كف فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا كان اسكيلالي مركز معاذ حوري وانا لمؤاخذون بما نتكلم به وحا انكو لنا رسولك الهي ميانا الله يستا واسيد بدن هذا وحا اي اما فيسبوك قرايان اما هذا اي كو هلايان ان لو قرايو او حسابي اي كدن بيسو اين الله اهين لكن دين تنوحوا بكذا شيء معاذ بن جبل رضي الله عنه يا إنوي دي النبي أو كيري وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به وحا أنكو الله إنه مياه نلو هيستا أو نلو قبنايا مركز النبي حكوري ثكلتك أمك يا معاذ هو يدها كويس معاذ وهل يكب الناس في النار ذاتك نار محاوطوا هري على وجوههم أو على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم عربكooda waxay ku goosteen mooge dadka maxaa naarta geliyada naar qof lagu tuuraayo oo waji loogu tuuraayo xaquuba ka imaaday oo aan ka ahayn wax uu ku hadlay baad sabab ugu noqday in qadaadka intii la qabto naarta hore loogu tuuro marka dad badan oo sey rabaan isaga hadlaayaan ciday rabaan caynayaan ciday rabaan wax ka sheegayaan maanta aan hayna waxa soo bixi doonta in la xisaabtami doono oo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ma taqaanaan qofka la yaqaan faqiirka ama midka aan waxba haysan meesha ugu dambeysay jooga markaas dhaxan waxaan naqaanaa qofku una shilin iyo waxba ka dhicin oo wax adduunyo ah ayna gacantiisa ku jirin wuxuu kaas maaha laan adduunyadu hadaad maanta faqri tahay bariba deeli kartaa mid maanta la bari ayuu weyn karaa adduunyada xaaladda way isbedelaan laakiin faqiirka runta wuxuu yahay qof salaado badan iyo soom badan iyo sadaqa badan la iimaanaya laakiin mushkiladiisu waxay tahay wuxuu iimaan doonaa asoo qof caayay asoo qof dilay asoo qof xoolihiisa qaatay markaas intii qof uu wax ku sameeyay ayaa saf u soo galaya markaas xasanaadkiisii salaadiisii soonkiisii ayaa laga qaadanaya haday wax soo haraan oo dadkii wax ka sheegay wali wax ku siileeyeen dambigi ayagu ay galaan intii laga soo gooyo ayaa asoo korka laga saaray naartuna galay wal ciyaadu billah marka carabka insaan isaga ilaaliyo waliba hadda uu ka sii diray bariga hore hadalka qofku uu yiraahdo waxa laga yaabaa xaafadda uu degan yahay oo kaliya ama inta qof uu la kulmo oo kaliya inay ku koobnaan jirtay laakiin maanta wax social media intuu soo baxay Facebook iyo waxyaabo intuu soo baxeen YouTube iyo leeyahay ya dadka qaarkii waxay u hadlaayaan kaanahum inaan xisaabi ka dambeeyeen oo kale dad ay caynayaan wax walba ay sameynayaan kaas waa loo qoraayo waxa uu sameeynayo markaas waliba dambiga waxa loo qoraayaa adduunka inta qof ee fiirsatay hadda dad waxay ku dadaalayaan inay dadka fiirsada ay badsadaan ayagoo u maraaya wax dadka indhahooda soo jiidinaya oo aan wax fiican ahayn ama cawradooda banaynayaan ama hadal xun intay ku hadlaan iyo waxa rabaan dadku bal inay dhageystaan
هذا الكنحون قف كان وشيء مركز سوحنا إلى يجوب بتان وحياة مشاهدين تذكر في سنة إلى يجوب بتان ما هو دم بيجي النار تأيوب بتسنة يا مرة قف هذا الحين تو يراله كنت لقلا ينو ذكر كوب الصغر ويراله كنتم كن أياي في ستي كنتم كن أو دم بي أيات قرطي أو مركز هذا ناس كو يريني وهي هذا كنت لقى شو حمانة وعادتك كفى أفسته أنت قف في ستي كان آخر الجاري حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب إذن كيس حسابية في يوجا عن حماتنا بكتير أنت قف في ستي فير ما يكون نقط هذا يكون صعب على بقول كن أيام في ستي كنت لقى بقول كن الدنبي أيام ناس كنت طالع معي هذا هتقول هذا الحلو معناه ساكر هذا ورك هلا وناجستو هذا الحلو يا الواحد سوشيال ميديا روح يا الجين إلى يا لقى عبسه ما أنت وادية برين وآخر متى سوامت وعربك يا هذا الكل واحد لا إلا إسكفير يعني حكوا سوق هذا مين مسؤولية ده ومدى الناس ومعالي ده حكمك هي السياسة ده هي مسؤولية ده لبعتها إلى جاي ستة لبعتها إلى جاي ستة وحي تهاي إن وحلا يجيو ضد كوي ربان لكن وحي ربان سيدي وحكوها جاي لهاين سعان أهين إلى وحكوها جاجيان ما نصعون يسو ودنك وحكوها جاجيان ضد كوانا يكسن أو إلهي كعب سنايا أو أمدا دمتنا إلى علينا إلى المدح والنقدان سيدي قصة النبي يوسف يا سورة يوسف كجرتي أبارة يا سور سعودي نبي يوسف رياض أيو أبارة أكو أركي نيكي بقرك يا رياضي رياضي أيو أركي وحور يا يفسر يا نبي يوسف أو رياض فسر كذا كان الله كاري وهو فسر أبارة إلى سور سعودان الله شيء وحور نيكاس الله يكاري والله كاري حفيز كيسوكو قابلي بقرك يحل يا نبي يوسف أيا إسقابلي ويش كيستين بقولك وحو كهلي سيده وحو تحليلنا يعقل بنيديسا iyo wanaaga wadanka la rabo laana qofka wanaagsan waxa uu yaqaana dantiisa gaarka kaba fikiree ummadda danteeda ayuu ka fikiraa markaas falamma kallamo markuu la sheekaystay Allah qaala innaka al-yawma ladayna makinun amin wuxuu agteena boos fiican ku leedahay boqorka dhahay dana boqorka ayuu qanciyay aqligiisa iyo meeshu ka hadlaayo boqorka ayaa qancay wuxuu yiri agteena darajo fiican ayaad ka leedahay waxbaan ka dhigi muusan dhina saw laakiin wuxuu muujiyay inuu ku qanacsan yahay sida uu wax u sheegay nabi yuusuf asay soo qadim marka wuxuu ku yiri ij'alni ala khazaa'in al-ard khasnadaha dhulkan joogtida masar wasaaradda maaliyadda meesha hadda la yiraahdo khasnada dawladda lacagta meesha lagu haayo aniga ii dhib ayuu waa nabi ilaahay waa nabi yuusuf محاجرة وحور إني حفيظ خسنتها سوحي اللي يوديبه ما دعايو ما حبايو وأنا حفيظ وأن إلهينا يعني حفيظ ما عكسي ساعة وحاقف عن إلهينا أوتوكي وحور عندنا عليم علم جانين والله وأبقى الله إلهيو وأنا لو كبعي وأنا قعناية أنا إيدي هل كاسمك يجوت والناس حديث قال اسكوا فجيو حديث وحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا الأمر أمر كانوا المسؤولية داودي بمينه قفكي سور راتسدا أما كد دالا مركز نبي يوسفنا ور راتسوي اجعلني أي رسالة سوا فجيا وحال سوا فجيا لي قفك يسوسو قدمايا ومدى إنه وحقوق قبطه وإلهي لأولوغ ياهي وقفكي تونس كقبا إنه دك واحتري كرو انتي قفك وعن دك واحتريني وحمان ولا وبوسكي جلي لها قفك في عني إنه بوسكي أساقله سوء دتك وشقيه تاسع السوق دبتانا نبي يوسف أبارتنا صوص عطا هدود دي بسنبه أبارتنا يصوص عطا وزير كمالية دنا ننكل الله مقعاله وأبارتنا يصوص عطا معاه هذا محل يقانا واحد يرهدي قف لو بيجيبه حالتنا يوحونا يسكع لكتاي محاس دعاية وحولها بورت انت أنا ما ضافته واحد دنبه يصوص هل جاريه بل انت سيدي أنو كلا حبيسان لهين انت مركز كاد بوي أساقا هدي لك كلا حبيس انت دادك نحيسانا يا اسكو سو جارايب وخاين ما تاسيدا مركز لو مدى يقف لوغ ياهي انو نودنك حقوق قبنيني قفكي اسوق انو حقوق قبنا يا رأينو سوهر مرو اجعلني على خزائن الأرض وإنو نور وحو كل هاين ايتاي اني حفيظ عليم هذا الأساس أهين هذا بيسجوك ناش مال عالي معنا النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وحد كل ذلك مدحت لماذا مدحان ربان مدحت نايسان وإنها خزي وندامة يوم القيامة ما أنت قيامة كسر لين تونتان هاي الواحد اسكو حساب هاي
marka sifaadkaas wanaagsan in loo maro hadda inaga mushkiladaysa waxay tahay marka dadka ahlu khayrka ah hawlaha ay qabsan karaan ama ganacsi ha ahaato ama ha ahaato caafimaad isbitaallo ama waxbarasho iyo jaamacadeed ama sidaas dadka hawlahooda nidaamsanaya danaha gaarkay aadeen in aan danihii gaarka ahaa meel soo gaarsiinin oo wax daydayaysa waxay isku legdaan ama isku hardinayaan meelihii ummadda laga hogaamin lahaa markaasa dadka wax soo saaraya waxaa la rabaa mas-uuliyad inay qaataan hadduu yahay kaaba qabiil ama hadduu yahay ergo qof kasta oo awood uu wax ku xula iska leh wiilasha la soo xulaayo ee qabiilka laga soo xulaayo ee walaalaha ee wada dhashay waa in lagu soo xulo kee u dan ah ummadda laakiin haddii lagu xulo sida soomaalida yaqaanaan oo ah baryahan waa la isdabamarsiinayaa oo siyaasaddii waxaa loo yaqaana khiyaano iyo wax isdabamarin eh reerka yaa ugu tuugsan yaa ugu khaa'insan haddii lagu soo xulo midaa waxaa laga sheegay inuu yidhi warnimayahow horta reerkeenna markaad tira koobteen wax iga tuugsan ma aragteen markaasay dhaheen dowladdii hore adun baa lagu xidhi jiray adoo lagu sii wado maan arki jirin oo tuug eh wuxuu yidhi haddaba xaaladda aynu ku jirno xaaladdii tuugadaa la yidhaahdaaye aniga meesha ha lay geeyo maalinkii shahaadooyin loo baahdo oo PhD iyo master degree iyo yaa wax lagu doorana ay noqoto digtooradan u soo celinayaaye laakiin inta hadda ay taagan tahay yaa tuugsan cid iga tuugsan ma jirtee nimayo ha la ii dhiibo intay ku qosleen runta uu sheegay ay kula yaabeen waxay dhaheen hay-adaa tuug mee hadaan ku qornay marka qoladan hadday tuug keentay qolada kalena tuug kale keene markii la weydiiyo maxaa tuugga u keenteen waxay leeyihin shaydaan baa laga horgeeyaa haddii qabiilkan marka shaydaan uu soo hormariyo qabiilkaas kalena shaydaan uu soo hormariyo majmuucatu min ashayaadiin meel isugu keeno masaajidkan aan isugu imaano ilaahay dhibka naga bixi shaydaankani waa dirtay uga wada si aan dhibka uga bixi marka waxaa la rabaa si aan dhibka uga baxin marka asbaabtii aan la imaano oo dadka wanaagga iyo ahlu khayrka cid walba ka fiican ay isleeyihiin wuu fiican yahay ha isu keeneen majmuucatu min asulaxaa dad wanaagsan oo khiyaara oo ahludiina oo fiican markay isu imaadaan waddanka maxaa u dan ah ummaddeen waa ummad yar wax yar oo isku aadan haddii la isugu aadiyo mar intay naga soo harto waxa aan haysanno yaan ummado kale u baahanaynaa hadda waddankan la yidhahdo turkiga dhaqaalihiisa maxaa kobciyey meesha ay xataa kuwii diidanaa inay islaamiyiintu wax xukumaan oo calmaaniinta la yidhahdo waxay u codaynayaan Erdogan oo maxay ugu codaynayaan waxaan ugu codaynaynaa dhaqaalaha waddanka sida uu kobciyey ayaan ku taageersannahay afkaartiisa kale waxba nagama gelin annaga dadku waa inay wax gartaan marka saas maxay ku noqdeen maxay inay wax kale maanan samaynin wixii dadku ay lahaayeen baan u daynay bas haddii marka siyaasiyiintu waxa ummaddu ay leeyihiin ay u daayaan oo ummadda ay ugu shaqeeyaan oo laisku soo gaaro waddanka intuu horumar gaaro oo mashaariic waaweyn aan samaysanno oo waddankeenna aan dhisanno ayaan hore u soconaynaa laakiin haddii laisku soo gaari waayo oo la yidhahdo hebelow adigaa yaqaanisa wax loo kaarteeyee meesha loo aad kaas la diray ogaada haddii lagu diray khiyaanadaas adna wax kuu tari u maayo dad kale wax u tari u maayo naftiisu xataa naftiisu wax uma taraayo maxaa yeelay qofka xumaatada samaynaayo weligii maba dhergeb waa weel gadaal ka duleela oo lagu sii wadaayo marka saas daraaddeed haddaynu rabno inaan dhibka ka baxno xaggee looga baxaa ina allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiruu maa bianfusihim marka nafteenna waxaa ku jira oo ah keeba kii ka cuyayaynin raadinina keebuu ka fiican yahay ummadda danteeda guud yaa wadaaya haddaynu kulligeen ka wada fikirno soomaali meel ay joogtaba dal iyo dibid oo khayrka la isu kaashado waddankana wuu degaayaa ummaddana horumar ayay gaaraysaa marka halkaas qof wal mas-uuliyaddiisa ka qaato kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raciyatihi qofkii marka fursad heli kara uu wax ku bedeli karo oo qof fiican uu ku soo saari karo ha ku soo saaro qofkii aan awood lahayn oo aan asaga fursad loo siininna ha la suga xilliga awood loo siiyo ummadaha xataa kuwa muslimka aan ahayn ee cilmaheennii ay u qaxeen oo maanta ay ku rafaadsan yihiin ubadkii si loo tarbiyayn lahaa wax kale horumarkaas kumayna gaarin noloshu ma iska habeeyeen waxbay ku heshiiyeen shacbigaasa awood leh qofkii ay rabaan ay doortaan kii ay ka suwaayeenna way iska ridaan ummaddii saasay qiimo ku yeelatay laakiin innaga shacbigeenna soomaaliyeed awood uu asagu wax ku doorto marra hore ayaa laga qaaday si loo xoogay ilaa hadda xaqaasi shacbigu wuu maqan yahay si lagu soo celin lahaa marka haddii shacbiga loo soo celin lahaa oo laga bixin lahaa inta yar ee meel ku xiran ee la laaluushi karo oo codka la baahin lahaa oo soomaali oo dhan shucuubta ay wax dooran lahaayeen hal mar haddii nala khiyaano
وهل سنة مثلا 4 سنة أو هل ما هدين إسخيانه أو خطبة في عن تني الله آخره ذكر ودرس كعادي فضلنا أيضا هيجي ونيجي واحد في عمله أو 4 سنة إذا ماتوا هدو الشعب الأول وليه هدو إسلام سجل صار نقضه وحيدي الآية لا يدرك المؤمن من جحر مرتين قف مؤمن يقول له عمر لقد قنينه أصلا يسكمون سوى الله أيام ويسكسي تجلها لكن هذا محياله مدح الدبانة كم إذا أيها غير كيسوتي وحكون الدبانة الربائنا هذا السنة كان إيه دورتان وحيدا محاق موقبتي وأنكو دورنا وحيدا أنا أقول أنا وحبا إذين قبلني أيام هدر إذن كربا إنا دورتان محال مرحنا دهان warku dooran mayna naga leexso ma Soomaal masaakiin sana wuuna qiranaya oo xulay waxba idin ma qabanin hadana saasay tahay waan rabaa ma rabtaa bas iska siiyayna waa lagu qoray hadana dawal ducaysanaya marka ilaahu dibka naga qaada wadaha nin shaacira wuxuu tarjum najata inaad badbaado ayaad rabtaa walam tasluk masaalikaha wadadii loo maray badbaadana ma maraysid tarjum najata walam tasluk masaalikaha إن السفينة لا تجري على اليبس دونتو بنانك أو بوكا دونتو كم صعد دونتو حبيب أنت بيجي كم صعد لكن دون اللامي كينا يا مركز الله شكي عمل حالة يدران وهو جامنا يا دونتو من دقائق الصومالي وحي ولا نرجع هيدا كي أو حبيب قلنا يمين نمرك وطلع كي توجع عمرك وطلع ويسوق قريان ويكينا يا هذا لو عليه إلهي البدباد اللي بنكون جرنا سألوا بدبادين عليه صومالي هروح يقول ما بعيدين إلهي بورسن مايه يعني قبل من لقى يلي مايو إلهي قرصنا يعني قبل من لقى مي إلهي ويلي كرا لكن أسباب اللي صدري قرت قرصو كدبنا إلهي بري سوماليا مركا أسباب تلقوا بالبادر عن الله يمانه كدبنا إلهي عن بري اللي بالبادر لكن أسباب تلقوا يمانه إنه هذا وان حنا راي سيكون بالبادر اسمه كينيسو مركا عندي بيسوون نقولنا عن تشنو قف والبولاجة سكت ليه وما دينا سوماليا مدبر أي راتوك سو جرتي هذا لو يكسي جرتا dibadda ay jiraan ku rafaasayeen gudaha ku rafaasayeen qabiil la sulay gobol la sulay cid maanta isku toosan ma jirto waxay nagu dhacday si ku dhacday reer Yaman ama Saba oo Ilaahay yiri wa mazzaqnaahum kull mumazzaq waan kala googoyntii ugu dambeysay Soomaali baa hadda meel ku shaqado kaas haday dheelaan qabiil baan isku nahay qabiil aan isdagaalin ma jirto qabiil iska dhaafay kuwa ilma adeerka ayaa isdagaalsan waxa isku dagaalna waa in yar oo dheef adduunyo دفتر الدنيا قيمة ملها وحكون أكثر ولا تنمدا يسجعلك مرة عقدة أنت اللي إسكساره وحي وضنك يومد الدنوة كل على وضع الشقايب قالوا البرنامج يكون عرقتي سياسة الحمية قف حن على صور مري يبقى أولياء سياسة وحصار عفرة هذه قف جردرا ووكال ما يقدر ديسا من عانى ظالما على ظلمه قف كي جردرا ووكال ما سلطه الله عليه أسوء إلهي دبه مصلدا هذا معايا قبائل كسول معايا اسكو ريران هيسيء الله مركي ريران كلا الظلمي رير كان واي سوما هاي مسلم كلا الظلمي مركي دمحاد عاي كي أي ذاتك كد الظلمي رير كوضا من بعد دبه سوجيست إبر ذاتك والظلمي مركي وحي كنا أنت مجرد دين دا إسلامك عدالة دا أنا قونين مذب أنا قونين لقط تقانا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي دين تاس أيها الدغير تاس عن كولا لونه وحي ونكسرنا عن قرب اسكسينه وحي حنا عن دام رالي أهو الشعب وحلق ونوران لها ووركي سلم مغلي لها وإن الجارو مركز عن الله الرئيسة إلى العادي نقوله هذه لكن ساس ليالي وايو وإن نقطة السيادة لا يقانو يا حول بدن هيستا يا وحوت يا ساس نقطه صاب الوجرايا كوا سلطة هيستا مركز حكم كهايا سيدا يحكم معمولا waxa laga rabaa hadii ilaahay awood u siinay wax maamulaan yaa idin dan ah idinkeena dhihina wadanka yaa u dan ah inay wax ku doortaan qof kasta oo talaabo qaadi kara dalka yaa u dan ah ummadda yaa u dan ah yaa fiican xaga in la hada rabaa laakiin ani maxay dan adiga inaad kor u kacdaan rabaa dantaada gaarka yarta waxba ma aha waxa ka weynta wadanka maxay dadku way dhamaanayaan way dhimanayaan waqtiga ka tagsiinayaan laakiin dhulka iyo horumarkiisu weligiiba uu joogayaa marka aynu ka shaqeyno wadanka iyo horumarkiisa iyo kor in loo fikiro in hoos u fikirka iyo isfiirinta hal iska daayo هذا وبالله تفضل جزاكم الله خير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد